السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. dhammaantiin kusoo dhawaada akademiyadda Dream Dental Academy. insha Allah fiidoogan waxaan ku sharxi doonaa habka loo galayo imtixaanka loo galayo application-ka isticmaalano iyo sida la rabo inaad imtixaanka u gashid iyo habka aad imtixaanka uga shaqeynayso ayaa insha Allah fiidoogan aan kaga hadli doonaa. markaas daawasho wanaagsan, si fiican haloola socdo stabiska aan marayo. marka ugu horeysa waxaad tegaysaa Play Store-ka, tegaysaa kabacdi waxaad raadinaysaa, waxaad ku qoraysaa Classroom. okay, waa kan Google Classroom. okay, waad ku dhufanaysaa, kabacdi waad soo dejisanaysaa, install baa leedahay, waad soo dejinaysaa. waxaan yara sugaynaa inta uu noo soo dejinayo, ayaan yara sugaynaa xoogaa inta uu noo soo dejinayo ayaan yara sugaynaa. okay, iminka uu noo dhameeyey. okay, application-ku noo soo degay, uu noo dhameeyey. okay, application-kii waa uu noo soo degay. okay, kabacdi markuu application-ku uu noo soo dego, okay, iminka uu dhameeyey, uu soo degay. waa kan application-kii, waa kan uu noo soo degay. kabacdi waad ku dhufanaysaa, waxaad leedahay get started. kabacdi waxaad dooranaysaa Gmail-ka. hadduu kugu sameysay hal Gmail ama laba Gmail ama saddex, wuxuu doona ahaado, Gmail-ka ayaad dooranaysaa. okay, aad ku isticmaalaysid ayaad dooranaysaa. okay, markaad dooratid Gmail-kii aad ku isticmaalaysay, aad dooratid meesha ay ku qoran tahay create, ku qoran tahay amba join, intan halkan ayaad ku dhufanaysaa. ay ku qoran tahay plus, ay ku qoran tahay ayaad ku dhufanaysaa. markaad ku dhufatid wuxuu ku oranayaa create class or join class. waxaad dooranaysaa meesha ku qoran tahay join class ayaad dooranaysaa. kabacdi wuxuu ku oran doonaa code geli. code-kan waxaan kugu soo diri doonaa group-kan ku leenahay WhatsApp-ka aan ku leenahay, ayaa code-ka insha Allah aan nagu soo diri doonaa group-keena aan courses-ka xiisadaan ku bixin iyo casharadaan soo dhigo. halkaa baan insha Allah aan nagu soo diri doonaa code-ka. code-ka soo copy gare amba soo qaado, kabacdina halkan ku qor amba code-kii geli, amba qor amba soo copy gare. kabacdi maxaa leedahay join baa leedahay. markaa join tiraadid, kabacdi muxuu ku keenay classka uu keenay. markuu classkii uu ku keenay, kabacdi halka intaa waxaa yaala imtixaankii la rabay inaad ku gashid yaa ka yaala. kabacdi imtixaankii ku dhufo, waa kan saa ujeedaan, waa kan imtixaankii, waa kan imtixaankii soo ma. imtixaanka ayahe lagu dhufanaya. okay, meesha ka qoran tahay exam ayaad ku dhufanaysaa. markaad ku dhufatid, waa kan imtixaankii waa kan. markaas imtixaanka wuxuu ka koobnaan doonaa qeyb gobageliya iyo qeyb su-aal ah. markaad tusaalooyin ma ka soo qaata, kana xabad laakiin gobagelidu waa dhow toole ilaa 15 amba 10 su-aalood amba 20 gobageliya amba 15 gobageliya amba 10 gobageliya yaanay noqon doontaa. laakiin kan waa hal xabo oo tusaale ku soo qaadanayo. waxaa lagu yiri total number of permanent teeth, soma mid doolar lagu yiri, waxaa leedahay 32. okay, haye ta kan waxaa lagu yiri tusaale ka bixi direct restoration amba kuwa ilka lagu buuxiyo. tusaale bixi, tusaale ka bixi baa lagu yiri, tusaale kee baa lagu yiri. markaa tusaale maxaa noqon karaa amba composite amba amalgam amba GIC, soma kaad u qor amba qor amalgam amba wax maxaa qoraysaa amba
composite ka doontid marka aad qorto ee saa u qorto meesha ku qoran tahay submit ku qoran tahay ayaa maxay aad dooranaysaa markaas oo dooratay bes okay jawaabtaada waa gudbisay imtixaankii waa gudbisay khalaas imtixaankii waa dhamaysay fasax baa tahay kaliya waxaad sugaysaa kaliya jawaabtii ayaa sugaysaa iyo imtixaankii waxaad keentay oo lagu sheego ayuun baad sugaysaa marka waxaan rajaynayaa inaad fahamteen. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.